kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale xubinteena mikrofoonka wareega waad ka dhageysataan Radio Africa 95.3 MHz. xubinteena mikrofoonka wareega waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa mowduuc muhiim ah kaas oo ah wax akhriska waxa inuu leeyahay mid balaaran waxaana tusaale inoogu filan kalimadii koowaad ee rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa hadii ku soo degtay taasoo ah akhri. quraanka wuxuu ka kooban yahay in ka badan 77,000 oo kalimadood waxa uuna Allah ka doortay inay ugu soo hordegto kalimada akhri inagoona ka dheehan karna muhiimadda wax akhrinta. akhrisku wuxuu dheelatiraa qofka aqli ahaan, jismi ahaan iyo dabiicad ahaanba. sidaan wada ognahay wax akhrinta waxay ka caawin kartaa inaad fikirto inaad xaliso mushkilad waana wax badan nolosha ka dhiga mid toosan oo aragti dheer. haddii aynu wax ka soo qaadano tusaale ahaan culimada islaamka waxay ka dhaheen wax akhriska. wuxuu yiri imaam Shaafici ma garanayo saacad iiga farxad badan waqtigan ku qaatay kutubada dhexdooda. mar imaam Bukhari la weydiiyay dawada xifdinta wuxuu ku jawaabay waa indhaha oo akhriska loo badiyo. haddaba maxaan akhrinaa? imisa saacadood ayaana wax akhrinaa? su'aalahaas waan weydiinay dhageystayaasheena ayaa waxay ahayd warcelintooda sida tan. waxaan akhriyaa quraanka horta waan akhriyaa waxaan kaloo akhriyaa maadooyinka faculty-gayga. marka waxaan aad u akhriyaa kulliyadeeda waxa la xiriiro. intaas markii laga soo tago waxyaalaha kale akhriyo oo waqtiga geliyo waxaa ka mid ah barnaamijyada dhanka diiniga fiqiga kale iyo xadiista. waliba fiqiga aad baan u akhriyaa. taani xaaji barnaamijyada kale cilmiga aan akhriyo. horta aan shakhsiyan waxaan jeclaa taariikhda kale aad baan u akhriyaa. waxaan kaloo akhriyaa barnaamijyada la xiriiro sirdoonka qaabka ay u shaqeeyaan iyo macluumaadkooda. saacadaha wax akhriska iyo barnaamijyadaas oo kale horta badanaa subaxi ilaa saaca 10 oo kale inta ka horeysa haddii aan jaamacad lahayn waxaan akhriyaa maadooyin jadwalka iyo qoran oo kale maadooyinkaasaan akhriyaa. taani xaaja maalinka intiisa kale galabkii habeenka fiidka hore oo kale intaasna waxay isugu jiraan barnaamijyadaas aan horey kuugu soo sheegay ayaan maxaan ku rahdaa jadwal u samaystaa. marka si isoo kale horeeyaan ayaan u akhriyaa. waxaan akhriyaa horta marka koobaad midda muhiimka ah oo ah kuliyadeyda wax kasta ku saabsan waan akhriyaa. labo waxaan akhriyaa waxa loo yaqaan taariikhda waan akhriyaa. ha noqoto taariikh islaami ah ama ha noqoto taariikh oo caalami ah ha noqoto. saddex sidoo kale waxaan akhriyaa waxa loo yaqaan falsafada. markaas ha noqoto ayada laftigeeda falsafa islaamiya ama falsafa reer galbeedka falsafada oo sharqiga waxaan reer bariga loo yaqaano dhammaan waan wada akhriyaa. sidoo kale waxa oo kale aan akhrinay oo ku dari karo cilmiga loo yaqaan cilmi suluuga ama waxa loo yaqaano cilmu tasawufka. waxaan akhriyaa waxa kamid ah nimanka falsafada dadka waxa kamid ah ragga loo yaqaano imaam ibn Ghazali waan akhriyaa. aflaatoon baa kamid ah waxa kamid ah Saqraat. sidoo kale waxa kamid ah Muhammad al-Ghazali dhawaa. waxa kamid ah raggan akhriyo Ibrahim al-Fiqi. saacadaha ma akhriyo maqribka ilaa iyo saaca 10 habeenkii. subaxiina waxaan akhriyaa saaca 5 laga bilaabo ilaa iyo saaca 9. markii laga soo tago daruusta jaamacadda iyo quraan kariimka ah waxaa jiro waxyaabo kitaabo badan oo akhriyo oo aan xiiseeyo. waxaa kamid ah kitaabada taariikhda, kitaabada juqraafiga ah, kitaabada caafimaadka ah, kitaabada kombiyuutarka waxyaabo noocaas ku saabsan akhriya. xilliyadan akhriyana waxaa kamid ah xilliga subaxii iyo galabtii oo kaleeto aan akhriya. qorayaasha aan jeclaana waxaa kamid ah Ibrahim al-Fiqi waan akhristaa. sidoo kale waxaan akhriyaa kitaabada taariikhda oo aad aan jeclahay sababtoo ah filligaas waa filli muhiim ah. waa hagaag dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan xubinta mikrofoonka wareega oo toddobaadkan ku soo qaadanay wax akhrinta. maxaan akhrinaa? waxaa loo baahan yahay in qofka uu akhriyaa ka hor inta uusan akhriska bilaabin inta u fudud ee quraanka kariimka qowlkii Eebe iyo axaadiista nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. kadib wixii aad maalintaasi qorshaysay buugaag ama bogag ah. waxaa jira kutubo badan oo laga qoray diinta islaamka oo ay tahay in la akhriyo waxaana kamid ah kutubada culuumta quraanka iyo tafsiirka sida Jaamicul Bayaan, kutubada culuumta axaadiista nabiga nabadgelyo korkiisa ahaatee sida Saxiixul Bukhari iyo Muslim, iyo kutubo ka hadlaya culuumta siirada, fiqiga, caqiidada, tawxiidka iyo taariikhda islaamka. dhanka kale kutubada caalamka carabta waaweyn waxaa kamid ah مقدمة ابن قلدوم يقرأ عبد الرحمن بن محمد ابن قلدوم، رسالة القفران يقرأ أبو علاء المعري iyo kutubo badan oo soo kala baxay xilliyo kala duwan kuwaas oo ka hadlaya qaybaha kala duwan ee nolosha oo kaalin xoog leh ka qaadan kara kubcinta maskaxdaada. faa'iidooyinka wax akhriska uu leeyahay diinteena islaamka waxa ay nagu baraarujisay akhriska inay tahay nolosha qofka oo dhan waana tan lagu amray nabigeena maxamed nabadgelyo korkiisa ahaatee ereygii ugu horeeyay ee la faray wuxuu ahaa akhri waana fariin guud oo ummadda muslimiinka ah. haddii aan u guda galno akhriska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay waxaan ka dheehan karnaa qaybo badan oo faa'iido ah waana sida tan kubcinta garaadka waa xubin ka mid ah xubnaha jirka bani'aadamka
waxa uuna u baahan yahay in mar walba la kobciyo. waxyaabaha lagu kobciyo waxaa ka mid ah akhriska iyo inuu noqdo mid joogto ah. culimmada ku xeel dheer arrimaha caafimaadka waxa ay tilmaameen in qofka akhriska badan inuu ka caafimaad badan yahay garaad ahaan qofka aan waxba aqrin. ka hortagga walwalka waxaa shaki ku jirin in qof walba oo dunidan ku nool in mararka qaar uu la kulmo walwal ka yimaada dhanka shaqada ama qoyska. walwalkaas waxyaabaha laga hortagi karo waxaa ka mid ah in qofka uu wax ka akhriyaa sida qur-aanka kariimka oo ah waxa ugu fudud ee qofka ku ilaabi karo walwalkiisa. aqoon kororsi waxaa hubaal ah in akhrisku uu ku horseedayo horumar nolosha, gaar ahaan marka aad akhriso waxa aad jeceshahay, waayo wuxuu ku kordhayo aqoon badan. waxaadna noqonaysaa qof aqoon badan u leh takhasuskiisa. waxaa jira kutub badan marka aad akhriso aad helayso fikirro wanaagsan islamarkaana aad ku maaraynayso noloshaada. qoraal fiican. markii aan ka hadlayno qoraalka fiican waxaan ula jeednaa in qof walba qofka uu ka akhris badan yahay uu ka qoraal fiican yahay. akhriskuna wuxuu ku horseedaa in qoraalkaagu uu noqdo mid wanaagsan oo la fahmi karo. degnaansho. mar walbo aad wax akhrinaysa ama aad wax qoraysa waxaad dareemaysaa degnaansho joogto ah, gaar ahaan intaad akhrinayso, waxaanay ka mid tahay faa'iidooyinka akhriska. qodobada akhriska wanaagsan saldhig ah ayaa waxaa ka mid ah diyaargarow, xoog saarid waxa aad akhrinayso, in uu kaa muuqdo hadafka aad wax u akhrinayso, meel u diyaarsan in wax lagu akhriyo, ka fogow waxyaabo badan oo ku mashquulin kara, qaado cunooyin caafimaad leh, iyo weliba isticmaalka erayada dhiirigelinta ah. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo caafimaadka maskaxda? wax akhrisku wuxuu ku ilowsiiyaa walwalka. inaad doorato nooca buugga saxda ah wuxuu ku siin karaa awood iyo inaad dunida ka aragtid dhanka wanaagsan. inaad noloshaada habayso habka ay isugu xiran yihiin sheekooyinka buugaagta ayaa wax weyn ka bedeli karta maskaxda isku dhex daadsan. waad ku raaxaysanaysaa inaad dib u akhriso buugaagta aad jeceshahay. waxay sidoo kale ku siinaysaa xasilooni gaar ah. waxay caawinaysaa maskaxda da'yarta. marka laga hadlayo akhristayaasha da'da yar, buugaagta waxay door muhiim ah ka qaadan karaan waxqabashada dhibaatooyinka maskaxda da'da yar. ugu dambeyn, waxaad ogaataa sida loo kala wax akhris badan yahay ayaa loo kala cilmi iyo aqoon badan yahay. dadkeena oo wax akhriyaa waa dalkeena oo horumara. waatii xikmadii ahayd khayr aljaliisa bizamaani kitaab, taasoo macnaheedu yahay saaxiibka ugu wanaagsan waa buugaagta. guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa xubinteenii mikrofoonka wareega oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay mawduuc muhiima kaasoo ah wax akhrinta. waxaana idin soo saaray islamarkaana halkaan idinkaga jeedinaya anigoo xasan yuusuf maxamuud xasan cabqari. intaan kulmayno xubintan oo kale toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.